gudoomiyaha iskuulka farsamada xeelo bariise agaasimaha cashuuraha dowladda wasaxada gudoomiyaha badda kole iyo gabdhaha walaashii sucaad walaashii mulki ibraahim ganacsiga ka socoto dhammaan martishaafta dhammaan ardayda iskuulka farsamada iyo gacanta ee xeelo bariise waakii cabdixakiim ee gabatigi صحافة دلوقتي عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان في أحكام الموضوع كبرات فيها مسؤول عن الوضع وقلت سنت دولها وكبرت مسؤول كحياة بريسة هذا هو أحسن المنطقة لما كل يوم عدد هذه الإنتاجات هي صوتها وبرسوا عليه هذا الضياع برنا اليافت واحتاج dalka iyo dadka waqta sida dadkii wiish Soomaaliyeed xirfadaha farsamada gacanta markay soo bartaan uma heli karin fursad aysan wadanka u shaqaystaan gabdhaha laakiin maanta inay gabdhaha waqti fiican ay kusoo naadeen xilli wadanka uu ka baxayo dhismo meel walba ka bilaabanayo wadooyinka hadday noqon lahayd hadday harumaha noqon lahayd haddii meel walba ay noqon lahayd aadaan ugu mahadcelinayaa bedelkeedi عبد الحيبة أجل إسلام الله تسميعه حيل بنيسة وها إنه كتب ضد كسومالي وهو أطرا مالي ولا وهو سوسته لو بدعي قبل كسومالي لما يرز كسومالي نفسي يعني وش قيدر نفس الدولة مالية نفس ولاك هذا ماليكا درس هذا ماليكا أنت سين العتاسين خصوصا شقيان أنت قصوى قص استعمال شعوب الدعية أجل إسلام الله تسير ميزان في سقيامها الله وصار مكان في سقيامها جمع الله أنت ستكون محاربة قبل صومالي هذا الجيلتي الجيلي بيه والجيلي نصيبة بيه وتنبض مسؤولين إلي ما تدري سوى فلسطين إلي هذا الجيلي أنا محاربة أن هذا الأمر يصير توصل مع البرتة والبشوف والسيدة والرشيد لكن إذا كنت لاشين عقبات والبوء يبسوا البنات إذا كنت صمستان رأسوا معي وهو البوء سوء البنات ودريب الكرام إذا كسب الكرام إن أرض الكرام مركو معرضة مدام البرانيس فصلت عن البرانيس شقا بدن إنتهي مسؤولية بدن يقصر إنتهي وح بدن على شقين يزدد بدن ولد دارك هنا كتب قادتين في المدينة horumarka mustaqbalkeena inaan ka shaqaystaan gabdhaha kala Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay ku soo biiraan iskuulka farsamada gacanta ee laga barisay inay u bartaan aan ku ekaan ilaa saari iyo darturi gabdhaha Soomaaliyeed intaasay jecel yihiin gabdhaha Soomaaliyeed way ku gudbeen aqoon-yahanaatiin farsamada walba la barto oo qof kastoo bini'aadam ku noolaan karo inaad baran kartid أود أن أولده كرتي أن أولده أقول أن أولده إن المغربنا يعني هو جبرت إذا كان هنا سير بجبرت فبعد كل صاحبنا التي أتكون بيريستان إن اسمه سبحانه بها أقول طول إسكو إكيسين عافمات إني برتان إني وقع برتان والله وقع برتان وفي عن الانتهاء من السنة بسمة العاد هذا المهم عندي يعني من هالشيء الدرك الموسم بقولين أقول تيجي يعني نسبة بقولين إني مستريح الصومالية إني بالبارية يكفي بالبارية بس هذا المهم عندنا وحنا أنا ذاك الترم نعطيه شفاف وأنا اتفقت وحنا صراحة هي طلب كناس ونسيء هي أرضية الترم كدرس استخدام قاموس هاي هذا الغلطة أرضية طلب كيكون برنا هي أنا من نقدر نقول إن أقول ما نحاول تحيل بس aqoonti xaq ku baranaya aqoonimada inay taalo dalkeena ee u baahan in la gacan qabto waxaan rabaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inaan ku daraan manhajka dalka inuu ku baxsano in la awoodsiiyo farsamada sababtoo ardayga in la bari kariyo duruus inuu qaato cunuga mustaqbalkiisa waa in lagu daraa inuu farsamada gacan qabto iskuulaadka ay taageeridda u baahan in lagu taageero gacan qabashada إن أرمها تفت كي قبل كبناتهم يقابلوا إلى قاعدة دون دون الله إلهه. يا رجال
gobolka banaadir insha allah waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka bedeli doono mustaqbalka carruurta soomaaliyeed ee ku nool caasimada wasaaradahan waxaan rajeynayaa maadaama haddana waxbarashada mar dhow dowladda hoose xamar ay ku wareegi doontaan ayadana inay noqon doonto mid qorshaha ugu jiro in wax laga bedelo waxbarashada dalka aadan waxaan rajeynayaa gabdhaha waxbaranaaya hadda sida hadda lee sheegay 300 oo arday ayaa ka qalin jebisay si lacag la-aan iskuulkaaniti heerka bariisa haddana ilaa 50 inay ka qalin jebinayaan ugu gabdhaha ay yihiin dhowr iyo 10 gabdhood hadda ay qalin jebinayaan gabdhaha soomaaliyeed waxa horumariyay dalka waa idinka dhibaatada burburka wax walba oo dalka ku dhaca gabdhaha soomaaliyeed sun ka dhimanin dalka uu istaagay dhexdan xirtay inay carruurta wax baraan reerkay maamulaan wax walba oo markaas ay caqabadaha inay ka gudbi karaan ee dareemay dalka hooyo ayaa la yiri ciidda hooyo ayaa la yiri calanka hooyo ayaa la yiri annaga marka gabdhahaas ayaa nahay marna ogolaamayna gabdhaheena inay baaba'aan aqoon la-aan ku dhacdo shaqo la-aan ku dhacdo ajaanibta laga keenaya dalka dibadiisa iyo farsamada gacanta u imaanaya ee dalkeena inay wadhisaan ama korontada loo isticmaalayo ama farsamo kale loo isticmaalayo inay ka gudubnaan dadkeena soomaalida baranayo diyaara in la garab istaago ganacsatada soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya ardayda ka soo baxaysa dugsiga reer bariis inay gacanta ku qabtaan shaqo walboo soo baxdan in si xalaal ah dadkii wax soo bartay aqoonta dalka wax ku bartay dhibka taagnaa in la siiyo maamul walboo shaqo qaadanaya inuu shaqada soo xayeysiiyo ee dadka wax bartay dhiirigelin ay helaan gabdhaha maanta ka soo barta haddii ay qaataan xarumaha dowladda lagu qaado ama ganacsatada ay qaado gabdhaha kale ama wiilasha kale aanan hadda niyaddooda ku jirin inay farsamada gacanta bartaan waxay niyad u yeelanayaan inay bartaan laakiin kuwaan haddii la dayaco kuwa kale waxaa yeeshaan marka waxaan rabnaa inaysa ajaanib laga keenin dibaddeeda ilmaheedii wax bartay aqoon-yahanada inay fursadda ugu horeysa ay qaataan annaga waxaan rajeynaynaa insha allah maamulkeena inaan si weyn ugu shaqayn doono arrintaasiti aadan idinkugu mahadcelinaa munaasabadan quruxda badan inaan ugu casuuntaan inaan tusisaan gabdho soomaaliyeed maanta alxamar ama makaanika ama dhismo ka shaqaynaa ama wadada cabirkiisa ka shaqaynaa injineeringa inaad ibar yimaadaan aniga fursad iqaaniga ii tahay aadan ugu faraxsanahay wallahi bilaa xaraagdaa maantaysa ana koobi karo saddeeda inta kusoo kordhiya hore oo weli laakiin wiilal markaas aan imaanaya boqoshada ku imaanay wiilal ayaa waqti baranay laakiin maanta oo iiga duwan tahay xarunta imaanshada maanta ay imaan wax walba iiga duwan tahay gabdhihiina maxaa idin leeyahay guulaysta aqoontiina allaha idiin badiyo horumarka dalka inaad ka shaqaysa inaad isku duubnaataan wax walba hadafkiin uu yahay horumarka dalkaaneed inaad ka shaqaysaan iyo dadkaaneed qalbiga ka burburay kuwa dhisanaya